بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن داودياشا قدرنتا iyo qiimaha inaga mudan ee Allahba ku xiran channelkan YouTube-ka Ismaaciil Aqiila ku soo dhawaada barnaamijkeena qisooyinka diiniga ah aan kaga hadalna insha Allah ta'ala maantuse waxaan idin sidaa qiso cajaa'ib ah insha Allah ta'ala koorinta barnaamijka gudagalin fadlan walaal haddaan nagu cusubtahay channelka subscribe saar si dhiirigelin inagu noqoto like ta saar barnaamijyadeena haddii aad ka hesay sii share garay si dad kale ay ugu faa'iideystaan sidoo kale gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka koowaad ee hela waxyaabaha xiisaha badan ee halkan aan ku soo gudbino qisadu se maanta aan idin sida waxay noqonaysaa madaxweyne iyo nin ama wadaad qaadi ah qiso dhaxmartay ayaan idin soo gudbin doonaa nin khaliif ahaa ayaa wuxuu doonay inuu dawladdiisa u magacaabo qaadiga guud ee dalka wuxuuna rabay inuu booskaasi geeyo nin wanaagsan oo ay dadka ku qancaan hase ahaatee culimadii muslimiinta way ka warwareegeen booskaasi iyagoo u arka inay tahay boos lagu fidnoobi kara kadibna khaliifkii ayaa ku qasbay ninkii wadaadka ahaa inuu qabto jagada balse wadaadkii ayaa ku yiri khaliifow kuma habooni booskaasi mana aqaano khaliifkii baa ku yiri wadaadkii been baad sheegaysaa wadaadkii wuxuu ku dhahay haddaan run sheegayo waan kuu sheegay inaan aqoon u lahayn jagada aad ii magacaawday haddaan beenaalo ahayna ma waxaad ummadda u magacaabaysaa ruux beenaalo ah waxaan filayaa insha Allah ta'ala qisadaasi in wax badan aad ka faa'iidi doontaan biidnillaahi albaari gudahaan barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo Ismaaciil Aqiila inta barnaamijkan midkiisa xaga inuu ku kulmi doono amaana Allah